Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waan idin salaamayaa Soomaali meel kasta ay joogto iyo meel kasta oo iga dhageysanaysaan. Insha Allah ilaahay waxaan ka rajeynayaa inaad ku caafimaad qabtaan. Maanta waxaan doonayaa inaan ka hadlo insha Allah beenta aan nafteena u sheegno. Beenta aan nafteena u sheegno kulligeen kole listigan qoladeena qof kasta wuxuu ka qaadanayaa kole aniga marka xitaa la igu daro marka haynoo bilaabanto. Ta ugu horeysa waxa weeyaan wax kasta waan garanayaa. Dadka maaragtay u maleeya inay wax kasta ay garanayaan adduunka meel kasta ku noolow magaalo joog miyi joog mar kastaba waxaad jaahil ka tahay baa jirto. Marka dadka maaragtay haddii waa wax lagu sheego ama jeclayn wax weydiistaan mar kasta israahda wax kasta waan garanayaa. Imika example baan ku sheegayaa wadamadan Yurubtan joogno haddii imika maxay aheeday guri kale aad tagtid waxa laga yaabaa cooker iyo microwave iyo waxa dhanba inaad guriga aad ku isticmaashid laakiin guri kale haddaad tagto waxa laga yaabaa inaad shooladooda si loo shidayo garan weydid example. Marka horta wax kasto mar kastaba waxaad mar kasto aad badow ka tahay baa jirto ama miyi joog ama magaalo joog dad waxaa jira mar kasta u maleeya in adduunka wax kasta garanayaan jaamacadda doonta ka soo bax meesha doonta ka imow mar kasta waxaad jaahil ka tahay baa jirto. Marka dadka mar kasta yiraahdo wax kasta waan garanayaa. Ta kale dadka mar kasta haday maanta wixii qaban lahaayeen aan qabanin israada beri baad qaban doontaa maxay aheeday taasuna dhibkeeda leedahay doorto Ilaahay baa ognaad beri gaadhiso. Mar kastaba waxa iska fiican inaad maxay aheeday haddii aad wixii qaban karto aad qabato maanta baad haysataa. Maxay aheyd dadka qofka hadduu isagu nafsadiisa israahdo waxbaa kaa khaldan wax kaa khaldan ma jiraan. Ilaahow maad baadiye ka timaadid magaalo ku dhalatid Ilaahay adiga si gooni oo special ah oo dadka kale kula mid ahayn buu Ilaahay ku abuuray. Marka maxay ahayd wax ka maaragtay qof kula mid ma jiro yes laakiin wax kaa khaldan ma jiraan. Qof kasta dabeecad yar wax yar qof kasta wixii uu gooni laakiin dadka isliiday israahda waxba ka khaldan ama waxa ma garanayo ama qofka lama tartami karo. Marka taasuna waa beenta ka mid tahay nafteena u sheegno maasha Allah Ilaahay si gooni ku abuuray. Maxay ahayd ta kale dadka israahda oo maxay ahayd qofkan ama dadkan haddaan maanta waxaan sameeyo ama waxaan sameyn lahaa maybe qofkan wuu isbedeli lahaa ama relationship kula jir ama asxaab la ahaw dadka mar kastaba israado qofkan walahi dadsan adigu samaysid oo adigu aad isbedbedeshid deetana qofkan waad ku maxay aheeday waad bedeli kartaa. Qof aad bedeli karto haba yaraatee even kuwaad dhashay baanad bedeli karin. Ilaahay baa qofkan samaystay dabeecadiisa wixiisana ama kula soco ama kaga hadh laakiin qof aad bedeli karto qofku isagu maalintu diyaar u yahay waxay doontaba ha noqoto noloshiisa uu rabo inuu ka bedelo. Marka uu isagu diyaar noqdo qofkaasi ayuunbu isbedelayaa. Ha isku daalin waqtiga iskaga lumin qof aad bedeli kartaa ma jirto. Marka kale aynu nidhaahno waxa waqti uma hayo taasuna waa waxyaabaha beenta ay nafteena u sheegno waxaanad waqti u hayn karin ma jirto. Ilaahow 30 caruur hayso Ilaahow adduunka qofka ugu mashquulka badan ahaw qofku wuxuu doonayo waqti uu u sameyn karaa. Marka taasuna waa been ay nafteena u sheegno waxa waan sameyn lahaa waan jeclaan lahaa inaan sameeyo laakiin waqti uma hayo. Wax kasta oo qofku rabo waqti uu helayaa taasuna waa beenta nafteena u sheegno. Maxay ahayd ta kale nafteena beenta u sheegno ay tahay qofka ama dadka la'aantood ma noolaan karo. Taasuna waa midaan beenta nafteena u sheegno sababta tahay qof aanad la'aantii noolaan karin ma jirto. maxay waalidkeenu ifka ina keenay baa maxay inaga horgeeriyooda haddii Ilaahay u qoro haddana waynu noolaanaa inta inagana teena ka hadhay. Marka qof maxay aheeday aad la'aantii noolaan karin ama dad saaxiibaha ku ahaadaan ama dad aad maxay aheeday isguursateen oo kale whatever ha noqoto laakiin qof aanad la'aantiis noolaan karin ma jirto. Waad noolaan kartaa horena waad u noolayd marka ka bacdina dadka la'aantood ama jamac ha noqoto dad asxaab ha noqoto ama relationship ha noqoto qof aanad la'aantiis noolaan karin ma jirto. Waad noolaanaysaa horena waad u noolayd dabadoodan waad noolaanaysaa. Dadka kale
iyaguna markay dhibaatooyin kusoo hagaagaan ama dhib haysto ama dhowr dhibood isaga daba yimaadeen waa adduun itixaan baynu ku jirnaa maxay ahayd isiraahda mar kastaba oo noloshanu dhibaatadan aan ku jiro weligii kama baxayo waa insha Allah waad ka baxaysaa dhibaato kastoo ku soo marta haddii aanay taada noqonaan dhimanin waad ka baxaysaa sababta tahay maxay ahayday dee adduunku inagaaba noolaanaynin soo wax adduunka raaga ma jirto dhibaatada maanta ku haysata adoo maanta dhibaatada ugu weyn ku haysato ayaad beri ta ugu wanaagsan kugu dhici kartaa marka waxaan dhibaato kasta oo iyo dhibaato kastoo soo martid waad ka maxay ahayday insha Allah mid ka fiican way imanaysaa ta kale waan gaboobay oo waxaa ma qaban karo taasina waa beenaa naftaada u sheegtid ilaahay uma 70 jir ahaatid 80 jir ahaatid intaad caafimaadkaaga qabto ee neefta kugu jirto maalin kasta oo soo kacayso aakhiriya adduunkaba ilaahay jaaniska lagu siinayaa aad wax ku samaysatay aad doonayso inaad samaysato wax ay ku xidhan dadkeenu Soomaali hadaynu nahay yaraan baa laynaga soo bilaabaa inantii yaro 3 jir ah xishoodna ayaa gabadh weyn baa tahay marka inagoon da'deynaba gaadhin ayaan maskaxda ka wada duqownaa aynu ka gabownaa hadaynu Soomaali nahay sababta tahay markasta mas'uuliyad badan baa layna saaray inagoo ciyaal hoo da'deynuba yar tahay ayaa laynagu yiraahdaa qof weyn baa tahay xishood sidan samee marka maskaxdii way inaga weynaatay iyadoo da'deena aanay weynaanin hadday taa da'daadu weynaatayna waxba ma laha laakiin wax aanad maxay ahaydey qabsan karin iyana taasoo kale because waan gaboobay taasuna waa beenta nafteena u sheegno caafimaadkaaga waxbaad ka bedeli kartaa ilaah baa caafimaadkaaga haya haddii aad nolosha wax rabtid inaad samaysatid waa samaysan kartaa inta ay neefta kugu jirto eed caafimaad kusoo kacayso maalin kasta aakhiriya adduunkaba ilaahay jaanis buu ku siiyey aad wax ku samaysid marka insha Allah kolley in badanoo aan ka tagayna way jirtaa bas maraba insha Allah in cajaladu dheeraato marka maxay ahaydey bal idinkuna iisoo sheega listiga waynu ku wada jirnaa kulligeen marka idinkuna qofku beenta naftiisa u sheego bal idinkuna iisoo sheega aniguna imkaan idiin sheegayaa labada waxaan been nafteyda u sheegaa waxa weeyaan oo waxaa timooran qabanaya berri baan qabanaya waxaas waa midaan anigu waan sameeyaa inta badan oo iska berri baan samaynayaa ta kale marmar aan idhaahdaa waxaa waqti uma hayo labadaasaan anigu listigan ka haystaa idinkuna qof kasta yacni isku wada mid ma nihin qof kasta maxay ahaydey sibuu usoo maxay ahaydey wax aaminsan yahay fikrado kala duwan baynu haysanaa marka ha ka xishoonina maxay ahaydey waxaa qof kasta isaguna beentu naftiisa u sheego insha Allah iisoo sheega waana mahadsantiin tii hore maxay ahaydey haddaad maanta adduunka ugu dambeyso maxaad samayn lahayd waa iisoo wada jawaabteen qof kasta wuxuu samayn lahaabaa ii sheegteen marka xoog iyo xoog baa u mahadsantiin waan idinka mahad celinayaa insha Allah tanna waan idinka sugayaa kolle listigan qof kasta waxbuu kasoo gelayaa marka iisoo sheega insha Allah marka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu insha Allah iyo soo noqo dambe